marley magacaad wadaagtaano muquuna haween tab iyo xeelad baan ku wadaya waxa la yiraahdaa ma tabahay ama xeelad hay labada mid uma adeegsanaya marley magacaad wadaagtaano muquuna haween muglaataaye micnaha quruxdanaada mulkiyo subax wanaagsan saaxiibayaal saaka waxaan idinka soo dhex salaamayaa xirada geela waxaan ku suganahay baadiye gaar ahaan isla gurigan ku dhashay maanta saad u jeedaan geela iga dambeeya ayaan rabaa inaan raaco hadda se waan soo toosnay yar ka hor waan soo quraacanayaa maanta waxaan noqonayaa geel jiri geelaasan raacayaa waan wadayaa waxaana soo hoynayaa hadduu alle lahdo caawa markay saacaddu tahay lixda fiidnimo madaxkiin saad u jeedaan ninka yar inta leeg ayaa geelan raaca madaxkiin oo maanta geel anaa ka furnay adeerka war ana raacay geela yahay bilan aniga geel oo wada lunaa mad raaci caawiside mad raaci geel ana raacay igu soo wareejiyay fastaxbaad yaa maanta haddaan ku baahdo ma aragtay waxaan guriga ku guumanay haddii la dhaahdo okay ma goormad geel raacdana markii goorse goormee ayaama hore imse blood areertida taagan waxa weeyaan iida waxaad sheegtaa saddex maamahood geel leeyahay saddex maamahood geel leeyahay waxa weeye geel laba jir soo wada mar hal diidanigeeda ku xoqato ma weydo hal liba xarkaysa ma gudlato afar mahmahood oo geelu leeyahay sheeg haddaad afarta dhammaystirto anna afar baan sheegayaa mahmahood oo aan afarta aad sheegtay ahayn inaad afartaad ku dhacdo malagay aniga afartaydu waan sheegayaa waan isku dayayaa anna afartayda waayahay waan bilaabayaa geel duq baa loo tumaa geel duq baa loo tumaa kow geel jaban oo calalhaye laba hal diidanigeeda ku xoqto ma weydo saddex hal liba xarkaysa ma gudlato afar soo maaha anna afartayda sheegaya dhageyso waa hagaag geel laba jir soo wada mar waa kow geel waa geel wixii gooyaana waa geel waa laba taasna waa muhiim taas aakhira nimaan geel lahayn lama cadaabeyn soo saddex maaha geel ta afraad waxa weeye abaal raaga rag iyo geel baa leh haa qabsan soo qabo aan ku hadlana kaale aan ku hadlana adeero ii waran wadi weynaati tamaha maanta ma raacaysaa hadda waan quraacanayaa markaan quraacda dhamaysto geel halkaas igu sugayo geelaasan kaxaynayaa maanta dhan halkaas joogaya laakiin waxaan maleynayaa intan inaanay qadada gaarsiinayninba inkastoo aad ay u macaantahay cuntooyinka halkan kale lagu cunaa dhadhan gooni bay leeyihiin أحمد ها ما أنت بروفيسور بودو أكتر ده جيلين سيدين ساي أنا جيل وكيلي أنا جيلني الحمد لله رب العالمين إيش وادي عارفه برواق الحمد لله رب العالمين أنت راعي يعني ما أنت راعي صح واسرع نادينا أتيلا لا يا يلا هذيك يزور كاجبة جيل كليجا هدي الولا راع ما أنت مسوي هين كرسا توايو يا هالبم مرسا وجيلا وضع
انت سهرة او بلا حرقة انت استرا سوهي عين تمركو كلو سيد سوهي نسا tab iyo xeelad baan ku wadayaa waxa la yiraahdaa ma tabahay ama xeeladahay اوكي labadaa mid uma adeegsanaya اوكي hay baqan اوكي انا maanta gaariga ayaan ku wadaya adna gaarigaad wadaysaa adna geela wadaya VIP sida hadda u jeedaan hashani way dhalaysaa wiig ama laba wiig kadib bay dhalaysaa hashani sida hadda u jeedaan waa la dabraa sababta loo dabraa hashani waxa weeyaan ma la seeteeyaa ma la dabraa sababta ugu weyn loo seeteeyaa waxa weeyaan inaanay lumin inkastoo imika casrigan uu isbedelay sida hadda u jeedaan hashan waxa ku yaala lambarkaas lagala soo xiriirayaa way dabran tahay waana dhalaysaa wadada tegeen وكان داقية مكة وكان هدو أي قادو لا طبعاً وأنا كاجت تجينا تساعد ولا شيء. برضو ودي كنا كنا واحد عني ما نقول لهين وعركوتو نكستو صومالي إنه وين كل رقلا رجع الرجال وكفان شري وسودة شري شد ومر شري مركا مانت الحمد لله رب العالمين غير كستون مي لهين مي تكنون قل لهين وعركوتو Soomaalidu waxa la rabaa kii ugu geela jaclaa waxa kamid ah Cabdigaheer gawiidi si caadi ah mid xasuusta mid yalla halka wuxuu la mariyay wan soo qaxay ingiriis ba laga qaad dhulku qayda ku lahaay qoys ya qoys Faransiis ya salaam halka wuxuu la mariyay wan soo qaxay markuu gabayga tirinayay wuxuu la hadlayay ina Cumar Qaroono gabadhiisa ahay ilaahay ina Cumar Qaroono adduun qalab bixi adiga qalab dooniyay qoys Faransiis adduunyada nindoofiyo ninkii degan dhulkii hooyo nindarigiyo nindowrqaday andheertay ana dhaawacaan qabo jacayli dibkaasta sida hadda u jeedaan xataa al'aan geeli waa la joogaa waa keligay aniga geel waa noo kala tegey waa la joogaa sidaad hadda u jeedaan aniga iyo geeli waana loo kala tegey sidoo kale dudumadaasaan fuushanayaa saxaawe ma aragtaan beriga hore waxaa la odhan jiray dudumada waa la isku derderaa laakiin tan waa dudumo yar tan waxaan kuwa yartay markaa isku haleyma soo fuulay sidoo kale saaxiibayaal marka saa u jeedaan waa barwaaqo maasha Allah geela waxaan u maleynayaa geela waxa la xareeyaa 6 fiidnimo ama 5 meelaha aan waxaan u maleynayaa geelani maadaama dhulku saa barwaaqo yahay inaan maanta xareen doono gabigoodaba labada duhurnimo haddaan gaajoodan haddaan ugu waan rabbihii xaafadda loo mariyay waa la tilmaamo waa qaadi hooya midooda soo ilaawa anigu midda soo ilaawa waxa weeyaan inaan ugu yaraan biyo soo qaato behe in huwa haraadeba durdaba ya indhaan marka soo qadayaan soo noqonayn baan leeyahay ujeedaan waxaa la yidhahdaa baraag ama birkid biyahaasaan dhaaminayaa biyahan waxa weeyaan biyaha markaan la qadaynayo la isticmaalayo biyahan saad u jeedaan waa la hareeyay baraf weeyaan way sii rabaaniyay
ururkiyo hoosugrahaye warramaya ardoy ayaad ka timi maanta adiga geela wada dirsan iyo cadaabtii oo qiimo maanta la ku dhex jiray adiguna waxa xiisaba ku hawlaha guriga iyo arrimaha guriga shaqeeysa ninkan waxa weeyaan my big brother waxaan xasuustaa axmedow markaan yaraan garanaysaa ariga markaan diido kaana lama raacayo waxaad iga orantay dad ariga raacin beed ka shaqeeya waad oran jirtay maxaad hortii oran jirtay waxa waan ku weydiinay waxa lahaa habarta hawsha adduunyada ka jirta amba taariga amba beerta maanta haddaba adna raaci maayo beer na qaban maayo ka waran waan ku diidi karaya berigaa waan ku diidi karin oo kaa baqan jiray aad iyo aad maanta laakiin wadiga xiiseynaya beertii wala dib ugu soo noqday dhulkii carabtu waxay ku maahmaahan kullu shay yarji ila asrihi aniga dib ugu soo noqday beerihii iyo alkii aan ka carari jiray oo shiriga ka xayay magaalada geeya haybadu waxa aad u leedahay meel maqal heesta tira haybadu waxaad u leedahay dalkaaga hooyo wana lama huraane beertan waxyaabo kala duwan ka baxa laakiin waxa ugu badan ee ka baxa waa qaadkaas geeli nin baan kaga yimid waan ka soo baxsaday caadi ahaan maanta halkaan ku suganahay waa xaafadii aan ku dhashay bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beertan oo ku taalla baxa dhamal waxaan doonaynaa halkan inaanu tusno dadku sida tacabka la geliyo dhulka uu uga soo bixi karo kani waa xabxabkii waa markii labaad ee uu baxo intii sanadkan tanna waa tamaandhadii iyadana imika la guri doono dhowaan iyadana waa la guri doonaa oo waa tamaandhadii xabxabkii iyo tamaandhadii digirtii waa laga guranayaa oo iyadana waa la cunayaa babaygii baa isaguna ku jira arabakhyadii baa ku jirta muddo intee lag bay kugu qaadatay inaad waxa weeye beertan aad beerto 8 bilood imika ayaanu maraynaa 8 bilood markaa 8 bilood maxaad ku soo saarteen waxaanu ku soo saarnay horta xabxabkan waa markii labaad beri hore waanu ka rarnay laba gaadhi oo waaweyn baanu ka rarnay lacag ilaa $500 baa markaa naga soo gashay mar labaadkiina waa kanoo imika wuu rarmaya garowgii wuu noo go'ay arabakhyadiina way noo goday digirtiina way noo goday tamaandhadiina waa tanoo waynu arkaynaa waqtigaas intaa leegay 8 bilooda tacabkoo intaasoo dhan walaalkeen uu la soo baxay haddii waxa waqti badan la geliyo sanadaha in waxa weeyaan wax fara badan waddankeena laga maarmayaba in Itoobiya iyo meelaha loo doonto